dadka reer Puntland waxaan ugu hambalyeynaya mar labaad mawaaqifta adag iyo maraaxiisha kala duwan 27 sano ee soo martay sida midnimada iyo wadajirka leh ay u wajaheen oo uga mar dhaliyeen iyagoo mar walba aan ka tagaynin in ay deegaanadooda nabadeeyaan horumarkiisa ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeedna gacan ka geystaan runtii 27 sano oo Puntland jirtay iyo 35 sano oo runtii burburkii dawladda Soomaaliyeed ka dambeysay wili dalka Soomaaliyeed wuxuu marayaa marxalad hubinta la'aan ah iyadoo aysan caga dhigan nidaamka dawladnimo ee dadka Soomaaliyeed iyo deegaanadiisa ay ku noolaan lahaayeen wili waxa muuqata kala qaybsanaan wili waxa muuqata aragtiyo kala duwan wili waxa muuqata deegaano Soomaaliyeed oo wili u sacyinaya in ay dalka ka go'aan waa duruufo jira iyo xaqiiqooyin taariikhi ah oo dalku soo maray oo u baahan shacabka Soomaaliyeed inay si mug leh oo dhug leh ay u dheehdaan Puntland waxay mar walba u taagnayd in la helo dawlad Soomaaliyeed oo mid ah oo ku dhisan nidaam federaali ah oo dhayaysa dhammaan boogihii dadka Soomaaliyeed soo kala gaaray waa nidaam aan rajaynayno in uu noqon doono midkii dadka xasilin lahaa deganaanshihiisana dhali lahaa waxaa sidaa barbar socda duulaan badan oo nidaamka dawladnimo iyo deganaanshaha Soomaaliyeed diidan oo ugu horeeyaan ururada argagixisada ah ee muddada 30 ah sifaayin kala duwan iyo heerar kala duwan ugu dhaxmilnaa bulshada Soomaaliyeed kuna diidan aragtida ku dhisan dawlad casri ah oo ku saleysan nidaam dastuuri ah oo ku saleysan nidaam ku saabsan heshiis bulsho runtii kooxahaas argagixisada ah oo mararka qaybtood shacabka Soomaaliyeed ku siray magac diineed ku tirtirsiyay inay wax khayr u wadaan laakiin waxa Ilaahay mahadiisa waqtigu waxa ku dheeraaday bulshada Soomaaliyeed maanta inay garowsan tahay inay ururadaasi ay yihiin ajandayaal dibadda ka yimid oo diinna sal ku lahayn dana Soomaaliyeedna aan ku dhisnayn ee ah ururo u taagan qaybinta iyo burburinta bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto